داوديها باش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يالسيد دركتان وحان شوقنا هدا gurigii loo dhisayay caruurtii agoontii rajada ahayd ilmo kayse samatar baxnaan walaalayaal waa aragtaan guriga deerkii horaan idinku soo gudbiyey 1 mitir baan wareejinay deerka sare haddana maanta waxaan seeskay dhignay qolalka 3 qol oo dhexe 3 qol oo aan rabno insha Allah hadii Ilaahay idmo inaan u dhisno caruurta agoontii rajada ah hadii Ilaahay idmo kulli suuliye ka jaw baan raaci doona hadii Ilaahay idmo walaalayaalow Ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadkii soo bixiyay lacagtaas in Rabbi subhanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka ugu daro Ilaahna subhanahu wa ta'ala wana kaga abaal mariyo jannadiisa firdawsana Rabbi subhanahu wa ta'ala ku geeyo saawtiin walaalayaal waan idin soo sheegay wixii hore ee soo gaaray lacag oo hay'adda naga soo kala gaareen hadda waxaan soo gaadhay lacag $2,016 waxay naga soo gaadhay $2,016 waxay naga soo gaadhay Canada gaar ahaan North Alberta ama magaalooyinka Edmonton iyo Farmant bay naga soo gaadhay lacagtaana waxaana soo gaarsiiyey $2,016 ah Faysal Cali Cismaan Dhabayaco Anisa Cali Diiriye Axmed Dhiif iyo Cabdi Sate afarta qof baa guddi ka ahaa walaalayaal waxaan Ilaahay idin weydiinaynaa idinka iyo dadka ka soo qaadeenba in Rabbi subhanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo wanaag idinka abaal mariyo waana aragtaa walaalayaal lacagtii tii hore aad soo dirteen Alberto Anisa iyo soo gaarsiinay waa ogeydana walaalayaal lacagtii horeysa aan ku iibinay meesha booskan aan hadda joogno ku iibinay lacagtana waa tii labaad ee naga soo gaadha North Alberta runtii waxaan leenahay waa dadaasheen waana bilow oo gurigii hadda buu bilaabmay insha Allah waxaan samayn doonaa hadii Allah idmo bulukeedkii la saari lahaa hadii Allah idmo baan hawshiisa hadda galeynaa oo bulukeedkii la samayn doonaa hadii Ilaahay idmo waa u jeedaan walaalayaal 3 qol oo hurdo ah baa hadda la wadaa insha Allah lacag dhigay seeskii la dhigay suuli iyo kitchen insha Allah waa raaci doonaan waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta ah ee u dhashay deegaanka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo ay kamid yihiin dadka haddaba na soo gaarsiiyay ama hawsha wada in ay ka qayb qaataan lacagta labaad waxay naga soo gaadhay Ali Guura Xirsi ninka la yiraahdo oo naga soo gaarsiiyay isaguna Australia lacag hore naga soo gaadhay lacag hore naga soo gaadhay oo soo gaarsiisay Saado Yusuf Farax lacagtan iyana waxaa soo diray Ali Guura Xirsi oo $100 iyana Australia ka timid waxaa kale oo soo gaadhay lacag $100 ah oo soo diray Aadan Ibrahim Diiriye oo New Zealand ka soo diray lacagtaasna waa soo gaadhay lacagtaas waa $2,316 marka total aan la isku daro walaalayaal insha Allah waxay ka gaadho shaqada baan ku qabanaynaa idinkana Ilaahay waxaan idin weydiinaynaa meesha ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay inuu idinku bedelo waa caruur waa agoon waa rajo waxaan isleeyahay haddii Ilaahay hortiisa wax la geysanayo oo dadka ugu mudan in loogu geysto Ilaahay hortiisa ama Ilaahay loogu dhawaado dadka ugu mudan weeyaan waa caruur yar oo 8 qof sida la ii sheegay qofka ugu weyn waa 13 jir ka ugu yarna waa 3 jir 8 qof weey 13 jir
saddex jir inta u dhaxaysa walaal waa garanaysaan marka waxaan leenahay walaalayaalow ha la soo caawiyo oo ha loo soo dhammaystiro dhismahaas awalba idinkaa bilaabay oo isu taagay iminkana waan rajaynayaa insha allahu idinka iyo dadka kale u dhashay deegaanadan sool sanaag iyo cayn iyo wax alla wixii muxsin ama muslimiina ee ilaahay dartii wax geysanayaaba inaad soo dhammaystiri doontaan mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay waxaan idin weydiinayaa inuu khayr idinkaga abaalmariyo idinka iyo wixii kale ka qayb qaadanaya ciddii soo ururisay lacagta ciddii soo bixisay cid walba ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu dambi dhaaf iyo ajar ku siiyo aakhirana wanaag ugu bedelo adduunkana wanaag ugu bedelo aakhirana jannatul firdaws ku geeyo waa mahadsantihiin walaalayaal waxaa baxsataan adduunyada intaasaa ku leedihiin waxaa horumarsataan baa ku leedihiin cid kasta oo danaynaysana waxaan ka codsanaynaa inay sida dadka walaalahooda iyaguna usoo taageeraan dadka agoontii rajada ah intaasaan kaga baxayaa ilaahayna waxaan weydiisanayaa cid kasta oo ka qayb qaata in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo ilaahay saasaan u weydiinayo oo wax ka khayr badan ugu bedela aakhriya adduunba sala allahu calaa sayidina maxamed wa alihi wa sahbihi